halay howlka weyn ee jaamacadda BUHS Bangladesh University Health Science ka dhacday xalfadii doorashada taasoo ay ku dooranayeen gudoomiyaha cusub ee hogaamin doona 2022 ee ardadu yeelan doonto waxa kale oo yara meesha xalay ka dhacday xil wareejin kaasoo xil wareejiyay gudoomiyihii hore ee jaamacadda oo hayay 1920 waxa halka maanta ka hadlay oo hadalla waano iyo tusaale ka soo jeediyay dhammaan ardada jaamacadda qeybaheeda maamulka iyadoo oo ay ku sugnaayeen guud ahaan ardada meesha ay joogtay waxa xalfada furay kana hadlay gudoomiye Ustaad Cabdirasaaq kaasoo ah gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee ardada jaamacadda waxaana uu hadaladiisa kamid ahaa sida tan jaamacadda BUHS ee dooranayaan hogaanka cusub hogaami doona dowladda yiraahdo sanadka soo aadan waxa aad u hambalyeynaya dhammaan ardayda jaamacadda waxa kaloo aad u hambalyeynaya guddigii hore gudoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo guddigii la shaqeynayay oo soo gaarsiiyay maanta in ardayda howlkan quruxda badan isku yimaadaan ay ka dhacdo doorasho waxaa kaloo isaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha xaafadda Minbuur Maxamed Kutiniyo kaasoo dardaaran iyo waano isaguna ka jeediyay waana kan hadalkiisa xaaladda ka jirto isbishiyaale area Minbuur waqtiga aad u gaaban yahay waxaana jiro muxuu ahay wax la dhahay ganax sida guddigna hore uga dhawaajiyaan in taamka ilaana muhiim waaye kulli munaasabada meesha uu imaanay hore Mustafana oo noogu sheegay Dr. Absaaqna oo noogu sheegay marka intaas inaan wada xoojino waxa aad ugu faraxsanahay inaan guddi mise gudoomiye ah u ahay community oo ismaqal iyo muxuu ahay isxushmeen ba ka dhaxayso so insha Allah anakana hoosheen kulli hadda inoo bilaabatay intaan in ka badan oo rajaynayna inaan wada shaqeyn doono waxa kaloo usna hadalka uga dameeyay gudoomiyihii hore oo isaguna ka sheekeeyay waxyaalihii iyo caqabadihii hortaagnaa si uu gudoomiyaha cusub uga feejignaado waxana uga barto wixii hore loo soo maray maalin taariikhi ah waxaynu joognaa madal sharafeed madashaas oo runtii quruxdeeda iyo qiimaheeda wajiyadiina laga dheehan karo waa doorashadii gudoomiyaha ardayda jaamacadda BUHS ee aniga ay bedeli lahaa kaasoo noqon doona labada nin ee halkaa fadhiya ku Ilaahay oo calfawan dardaarankaygu wuxuu noqonayaa daba dardaarankaygu wuxuu noqonayaa maadaama doorasho la gelayo oo laba garab la kala yahay had iyo jeer haddii dadku ay yaraadaan oo laba musharax ay yimaadaan dadku way kala qaybsamaan laba dhinac bay kala noqdaan war saaxiibayaal doorashada aynu galayno macnaheedu ma aha in la isku naco macnaheedu ma aha in lagu kala tafaraaruqo macnaheedu waxa weeyaan laba nin oo asxaabteena ka mid ah ayuunbaa loolanba iyaga ka dhexeeya idinka looladi kama dhexeeyo markaa si sharaf leh aynu codayno waxaa kaloo iyaguna halka ka soo jeediyay labadii musharax ee kala ahaa Muxsin Cabdiqaasim iyo Faysal Bakaal oo ardada jaamacadda ka codsaday inay codkooda siiyaan si ay ugu adeegaan waxna ugu qabtaan sanadka 21 ilaa 22 inta taariikhdu ay ku suntan tahay oo ay wada shaqeyn fiican iyo codkoodan ay caawa ugu deeqaan iyaguna waxa ay dhaheen sida tan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudoonka guddiga ardayda jaamacadda Bangladesh gudoonka guddiga doorashada marti sharafta iyo dhammaan ardayda sharafta leh oo horteeda fadhida أنا هاي محسن قاسم يحيى كودش مقالة قردو كبرباري وحنا كبرتين مقالة بوساسو وحنسيدو كلمانتا مشرح أو هاي حيلك قدومين مو أردايدا سوماليات جامعة بنغلاديش University of Health Science. السلام عليكم وحمد مدن الله سبحانه وتعالى ومانتا نصور قليي إنان إسوغو إيمانو متكمد قولهينو حدينو نهاي أرديدي جامعة Bangladesh University of Health Science ديب وحن مانتا إسوسو شرحي قدوميها أرديدي جامعة BUHS حدي أنكو قوليستو حلكن قدوميها أرديدي جامعة BUHS وأد إي دورتان سيحقر لآنا إي لشغيسان waxaa kaloo iyaguna goobta see kala dambeeyay oo hadallo waano iyo tusaaleyn ah
goobta ka soo jeediyey Axmed Cadaawe iyo arday ururka haweenka gabadha gudoomisada u ah oo iyaduna halkan hadalkeeda ka tiri iyo macallin ustaad Axmed oo isaguna waano iyo tusaaleyn buu soo jeediyey iyaguna waa kuwa kan iyagoo hadalka u kala dambeeyay musharaxiinta quruxda badan oo horteena fadhida nana weydiisanaya codkayaga iyo ardada kale dhamaanteed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xilbiyaal hortii hadal badan hadal buuxsho Soomaaliya tiraahdaa meeshaan hadal badan kama farna caawa waxaa la isugu nimi waxa weeye waa inaan labada wiil oo dhalinyarada oo ku loolamaya gudoomiyaha ardada jaamacadda BUHS ururka ardada ku midaysan tahay in ay u codeyno marka hore hortii waxaan qirayaa adinkuna aan u maleynayaa in ay qiraysaan intiina caqliga u saaxiibka ah in aynu u baahannahay oo dhammaanteen aynu muhiim inoo tahay ururka ardada jaamacadda BUHS qof walba meeshaan fadhiyo mansabka iyo maqaamka ku fadhiyo baan ku salaamayaa marka koowaad marka labaad anoo ku hadlaya afka gabdhaha dhigta jaamacadda Bangladesh University of Health Sciences waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay intee anagoo isku qalbi furan alxamdulillaah rabbil caalamiin Soomaalinimada ayna wada ina halkaan qalbi xirnaan iskula wada joogno insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inaan sidaa si ka fiican anagoo isku ah aan ka wada tagi doono labada hoggaan ee u taagan inay intaas oo arday hoggaan u noqdaan rabaan insha Allah waxaan rajaynayaa soo Axmed sheegay maanta say noogu imaadeen ay noo wanaajiyeen ay nooga dalbadeen foodkeena in berina ay u tixgeliyaan ay u qiimeeyaan caawashooyinkeena iyo wixii xaggeena uga imaado kaliya waxaan rabaa in aan xusuusiyo labada musharax Muxsin iyo Faisal qisadii nabiyullaahi Yuusuf oo aad garanaysaan inay tahay qiso aad iyo aad yani quraanka suuradan kaligeed yani ku soo aroortay qayb kamida oo dhahaysa oo ah inni xafiidun caliim wuxuu dhahay 7 sano oo abaarta ah ee imaan doonta waxaan manage garay doonaa maaliyadda aad ugu aamintaan asagoo laba sifo isku tilmaamay oo ah xafiid oo micnaheedu ay tahay waxaan xifdin doonaa maalka aad ii dhibtaan sidoo kale waxa uu isku tilmaamay caliim oo ay tahay micnaheeda cilmi ayaan u leeyahay waxa loo yaqaano financing ama dhaqaalaha sida loo manage gareeyo ardayda Bangladesh jaamacadda Bangladesh University of Health Science oo runtii maxaa iraahdaa ii sheeg hoolkan qurxiyay dhammaantiin waxay idinkugu salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام waxay ii tahay sharaf gooni ah runtii maxaa iraahdaa ii sheeg xaflad noocaan ama maxaa iraahdaa events noocaan inaan goob joog ahaad waxaan rabaa inaan maxaa iraahdaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo guddigii doorashada oo soo awaabulay oo runtii maxaa iraahdaa shaqo qurux badan oo aan dhigi karo maxaa iraahdaa way adkeed dadka qaar inay qabtaan soo qabtay waa mahad celin gooni ah siina mahad celin kadib waxaan xilka soo haynay guddideennii hore 12 bilood iyo maxaa iraahdaa iyo maalmo gabagabadiina waxaa loo doortay gudoomiyaha jaamacadda Maxamed Bakaal halkaas uu ku helay 31 cod halka Muxsin Qaasimna uu ku helay 19 cod waxaana ay ku soo dhamaatay si damashad iyo wanaag iyo ixtiraam iyo qadarin waxa ay dhammaan ardada jaamacaddu hambalyo iyo bogaadin u dirayaan gudoomiyaha cusub oo ay leeyihiin shaqo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.